kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waraadka wararka waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee aad daawad doontaan waxaa kamid ah galmudug oo ku eedeysay farmaajo inuu fashiliyay wadahadaladii u dhaxeeyay isaga iyo Rooble Axmed Madoobe oo ku xanuunsanaya dalka Jarmalka Villa Soomaaliya oo dib uga cashatay gaari aan xabadu karin oo ay hore u siisay Bashir Goobe maxaa ka jira in Rooble oo ka tanaasulay kiiska Grand Tahliil qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawad doontaan balse waxaynu idinka codsanaynaa inaad channelkeena raadka wararka subscribe saartaan muuqaalkana like saartaan oo sii share gareysaan gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan wararkeena degdega ah dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegtay in farmaajo uu fashiliyay wadahadaladii laga dhex waday isaga iyo Rooble wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Cumar Shido oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in farmaajo uu fashiliyay wadahadaladii u dhaxeeyay isaga iyo Rooble Cumar waxa uu tilmaamay in wadahadal ka socday maalmihii la soo dhaafay in mararka qaar oo soconayay 18 saac ka badan balse aanay jirin natiijo muuqata oo la soo bandhigi karo sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ay geliyeen dadaal xoogan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka wasiir dowlaha madaxtooyada Galmudug ayaa intaas ku daray in dhanka ra'iisul wasaare Rooble oo bisel siyaasadeed muujiyay iyo tanaasul balse farmaajo dhankiisa aysan jirin wax tanaasul ah sidaad la wada socoteen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo maalmahan ku howlanaa xalinta khilaafka ka dhashay kiiska Grand Tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble dadaal badan oo bixiyay madaxweynaha Galmudug marxalado badan oo soo maray iyo xilliyada qaar oo ay shirar ku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac ka badan ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday fashil iyadoo ra'iisul wasaare Rooble garabkiisa ay muujiyeen bisel badan halka dhinaca kalena lagala kulmay caqabad aad u weyn taa oo soo dadajisay inuu wadahadalkii socday oo istaago ayuu yiri Cumar Shido qodobada la isku mari waayay waxa kamid ah wasiirka amniga oo farmaajo uu dalbaday in laga qaado xilka sidoo kale farmaajo ayaa soo jeediyay inuu isaga magacaabo taliyaha hay'adda NISA fashilkan ayaa noqonaya kii labaad ee muddo 2 toddobaad ah ku yimaada wadahadalada laga dhex waday farmaajo Rooble ayaa ku adkeysanaya inay cadaalad heshay Grand halka farmaajo uu doonayo in la duudsiyo xuquuqdeeda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku xanuunsanaya dalka Jarmalka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaala dalka Imaaraadka Carabta sida aynu wararka ku helnay ila xogaal ayaa inoo sheegay in Axmed Madoobe uu galay 3 qaliin waxaana wararku ay sheegayaan inuu aad uga xanuunsanayo isbitaal ku yaala dalka Jarmalka xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in markii hore la qorsheeyay in lagu qalo isbitaal ku yaala dalka Imaaraadka Carabta balse dhaqaatiirta ay ku taliyeen in loo qaado dalka Jarmalka sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in Axmed Madoobe oo la xanuunsanayo dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray iyo xanuuno kale oo dhanka caloosha ay ila wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha uusan ku jirin marxalad adag ayna xaaladiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii uu qaliinka maray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kol hore waxa lagu fuliyay qaliino dhowr ah iyadoo lagu qalay dalka Jarmalka ayaana inta badan lagu dabiibaa xaaladda caafimaad Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Villa Soomaaliya ayaa dib uga cashatay Bashir Goobe gaari aanay xabadu karin oo hore u siisay ila wareedyo kala duwan oo ka tirsan hay'adaha ammaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa raadka wararka u sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay kansashay gaari nooc aan xabadu karin oo hore loo siiyay General Bashir Goobe gaarigan waxa bixisay Villa Soomaaliya sanado ka hor hase yeeshee toddobaadyo ka hor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyay loo diray warbixin sheegaysa in gaarigan oo u gacan galay Al-Shabaab waxaana gaariga loo diiwaan geliyay in uu jiro dhinaca Al-Shabaab xogta la helay ayaa tilmaamaysa in shirkadda ay awood u leedahay in ay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ku shaqeeyo system computer sidoo kale waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in shirkadda ay awoodo in ay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtan dambe saraakiisha amniga ayaa sheegay in Bashir Goobe sabab amni darteed oo iskaga dhigay gaariga kadib markii loo gudbiyay xogta gaariga waxaana lagu wareejiyay gaari kale iyo ciidan military ah kuwaas oo sugaya
ammaanka Bashiir Goobe. Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiis ayaa aad u diidan magacaabista Generaal Bashiir Goobe ee taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, waxaana la soo warinayaa in ay saareen culeysyo badan oo dhanka ammaanka ah. Sida aan xogta ku helnay, Villa Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashiir Goobe inuu diido magacaabista Rooble oo beddelkeeda qaato lacag, balse taa waa uu ku gacan sayray Bashiir Goobe. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhawaan Bashiir Goobe waxa uu magacaabay agaasimaha ku-meel gaarka ee hay'adda NISA, waxaana Farmaajo arrinkaasi ka soo horjeeda oo doonaya in Bashiir Goobe uu diido xilka loo magacaabay. Sidoo kale, Bashiir Goobe ayaa ka soo horjeestay dalab uga yimid dhanka Farmaajo kaasi oo ahaa inuu iska casilo xilka uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxaa saacadihii ugu dambeeyay soo baxay warar sheegaya in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu lacag qaatay isla markaana uu ka tanaasulay kiiska Igraan. Warar ku saabsan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka tanaasulay qodobo dhowr ah oo uu qarka u saarnaa heshiis oo la galo Farmaajo ayaa xalay qabsaday baraha bulshada, taas oo aad u niyad jabisay taageerayaasha Ra'iisul Wasaaraha. Hase yeeshee, xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa xaqiijiyay inaysan jirin arrin uu ka tanaasulay Rooble, balse arrimahaasi lagu baahiyay baraha bulshada ay yihiin warar been abuur ah. Sida aan xogta ku helnay, wadahadaladii xalay dhacay, Ra'iisul Wasaare Rooble waxa uu meel adag ka istaagay laba qodob, halka qodobada kalena oo u furnaa inuu aqbalo haddii xal iyo heshiis horseedi karaan. Si kastaba, isla qodobka oo ogolaaday ayaa haddana ka socon waayay dhanka Farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ogolaaday in loo magacaabo taliye cusub hay'adda NISA, kaas oo aan ahayn Bashiir Goobe iyo Yaasiin Faray, balse waxa uu dalbaday inuu noqdo qof la yaqaan oo magac iyo sumcad ku dhex leh Soomaalida dhexdeeda. Si kastaba, Farmaajo ayaa dalbaday in taliyaha laga dhex keeno shaqaalaha NISA ee iminka, taas oo Ra'iisul Wasaaraha uu diiday sababo la xiriira in uu tuhumayo xiriirka ay weli la leeyihiin agaasimihii hore ee hay'adda NISA. Farmaajo ayaa kadib soo jeediyay in taliyaha NISA laga dhigo wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere oo saaxiib la ah Fahad Yaasiin. Hase yeeshee, Rooble ayaa taasna ku gacan sayray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in magacaabista Cabdiraxmaan Dheere ama shaqaalaha kale ee NISA ay ka dhigan tahay baabi'inta baaritaanka kiiska Igraan Tahliil Faarax oo uu ku sheegay qadcas oo lama taabtaan ah. Dhankooda, kooxda Farmaajo ayaa soo jeeday in la bedelo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo la geeyo wasaarad kale, isla markaana Farmaajo oo soo magacaabo wasiir amni oo cusub. Balse Rooble ayaa sheegay in sida kaliya ee uu wasiirka amniga ugu bedeli karo wasaarad kale ay tahay inuu isaga dalbado, taas oo wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo isagana ku gacan sayray. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in haddii wasaarad kale la geenayo uu iscasilayo, wuxuuna Ra'iisul Wasaaraha kadib u sheegay inaanu marnaba bedeli doonin haddii aanu raalli ka ahayn. Sida muuqata, Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ka go'an in wasaaradda amniga iyo xilka taliyaha NISA la geeyo shakhsiyaad oo aad ugu kalsoon yahay, taas oo caqabad ku ah baaritaanka kiiska Igraan Tahliil. Guud ahaan warka ka daawanaysan raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.